Roobab ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay ka da'een magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Roobabkani oo ahaa kuwo aad u xoog badan isla markaana inta badan magaalada Gaalkacyo iyo deegaanada ku xeeran si weyn ay u da'een ayaa haddana roobabkaasi waxaa si weyn u soo dhoweeyay bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo iyo deegaanada ku xeeran. Waxyar kadib salaadii subax saaka ayaa mar qura waxaa roobab mahiigaan ah ka bilowdeen magaalada Gaalkacyo iyo deegaanada ku xeeran. Roobabkani oo inta badan ka da'ayay gudaha iyo daafaha magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa wadooyinka qaar ee soo gala iyo kuwa ka baxa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxa ay dhigeen biyo badan, taasoo xilliyada qaarkood gawaarida aysan mari karin. Roobabkani ayaa qayb ka ah roobabka xilliga dayrta ah oo ka curtay inta badan koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya, isla markaana ka da'ayay deegaano badan oo ka tirsan dhulka Soomaalida. Roobkii saaka ayaa ahaa roob si weyn ay ugu diirsadeen bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug oo maalmihii ugu dambeeyay la daalaa dhacayay kuleyl daran. Roobabkani iminka ka bilowday deegaano badan oo ka tirsan waddanka Soomaaliya ayaa haddana waxaa qaarkood ay geystaan fatahaad. Roobabkani ugu dambeeyay ee ka da'ay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa kusoo beegmaya xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay magaalada Gaalkacyo ay ahayd jawi aad u kulul, isla markaana bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug si weyn ay u soo dhoweeyeen roobabkii saacadihii lasoo dhaafay ka da'ayay magaalada Gaalkacyo deegaanada ku xeeran. Habeenkii xalay ayaa roobab xilkani ah waxa ay ka da'een degmada Jariban oo hoos yimaada magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug iyo sidoo kale deegaanada Bacadweyne, Buursar, Xarfo iyo deegaano kale oo dhammaantood hoos yimaada magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug. Muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa deegaano badan oo ka tirsan dalkeena Soomaaliya waxaa ka da'ayay roobabka xilliga dayrta, qaarkoodna dhibaatooyin badan ay u geystay bulsho badan oo ku nool koonfurta Soomaaliya. Dhinaca kale, wararka naga soo gaaraya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in weli ay fatahaadii webiga Shabeelle ee muddooyinkii ugu dambeeyay ka geysanayay magaaladaasi ay kasii soconayaan. Dad badan oo ku nool magaalada Beledweyne ayaa sidoo kale isaga barakacay magaaladaasi. Dadkaasi ayaa ka maciinbaday guryahooda waxaana dhibaatooyin badan ay ku haystaan deegaanka Ceelgaal oo 5 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Ismaaciil Abuukar, Kasmaal Group, Gaalkacyo.